waxaa ku xiga xawdka nebiga calayhi salatu wasalaam inaynu xusno oo isaguna maxsharka la isugu keenayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyey weli ilaahay kowthar la yidhaahdo inaa acطaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar wuxuu sheegay nebigu calayhi salatu wasalaam min sancaa ilaa xadramowt ilaa cadan ilaa madiina inuu xawdkiisu uu saa uu furan yahay oo biyihiisuna ay yihiin suu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam abyada min allaban biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha ayay ka cad yihiin waxay ka macaan yihiin malabka ayay ka macaan yihiin riixdiisuna atyaba min riixi ilmisk waxay ka udgoon tahay miskiga ayay biyaha biyo yaab la weeye oo nebigeenna ilaahi subxaanahu wa tacaala nebi kastaana wuxuu leeyahay xawd buu leeyahay buu leeyahay dar laga cab buu leeyahay nebi walba oo ummaddiisu ay imanayso nebigeennana calayhi salaatu wasalaam ugu dar weyn oo ugu wehel weyn ugu weyn ummaddiisuna halkaasay imanaysaa nebigu calayhi salatu wasalaam uu soo istaagay anas ayaa weydiiyey nebiga calayhi salaam nebiga calayhi salatu wasalaam anas baa wuxuu ku yidhi rasuulkii allow maalinta qiyaamo oo dadku hadda la wareerayo xaggeedan kaa helaya haddaa ku soo raadi wuxuu ku yidhi talqaanii waxaad igu arkaysaa cinda siraadka haddii aad iga weyso cinda almiisaan miisaanka agtiisana waad igu arki kartaa haddii kaleetana cinda alxawd ama weligayga agtiisa saddexdaa meelood laygama weynaayuu yidhi waad igu arki kartaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam meelaha isu jooga oo ummaddiisii ayuu ka waraabinaya gacantiisa ku waraabinaya weelka yaalla cadadu nujuum asamaa ayay ka badan yihiin weelka xidigaha cirka saaran bay ka badan yihiin markaa ummaddiisa halkaasay soo gelaya markaasaa qaar naga celinaya malaa'igtu ka celinaysa ummaddiisa ka mida wuxuu la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar ummaddiisa ka mida ayaa laga celiyey markaas oo aan garanayo markaasaa waxaan leeyahay ummaddaydii bay ka mid yihiin dadkaan xaggeed u celiseen markaasay malaa'igtu leeyihiin innaka laa tadri ma axdatu bacdak ma ogid gadaasha waxay sameeyeen lam yazaaluu murtadiina calaa adbaarihim gadaasha ayay dib u noqdeen qahqara dagaal bay u burteen sunnadaadii way ka tageen diintaadii way ka tageen waxay ka tageen nahjigaagii iyo manhajkaagii way ka tageen iyo waddadaadii iyo dariiqadaadii marka waa kii nebigu ina faray calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin qofkii doonaya inuu weelkay ka cadho oo weligayga ka cadho sunnadayda ha laasimo dariiqayga ha raaco sunnada nebiga calayhi laasimideenu marka waxay keenaysaa iyo ka fogaanshaha macaasida iyo bidcada waxay keenaysaa in qofku uu ka cabo nebiga calayhi salaatu wasalaam siraadkiisa bil haddii lagu socdo lama dhammayn karo webiga wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam masiiratu shahr bil baa lagu socon karaa haddii la socdo ayaan la dhammaynayn inta uu leegyahay webiga nebiga calayhi salaatu wasalaam mooska saddexaad oo aan arkayno waa miisaanka ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إلى الميزان أيام بقينا قتلنا ما لتقيام وحير أو عيد وجنا عنه غطاه ولا كين ولا صار الميزان خير إحمان وناد وسميه الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون هو ميزان كود عسلابه ونفسن وعمل كود ونفسن وعسلابه هو سوى كل الميماني ويباسيات ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إلهي سبحانه وتعالى وعلى موازينتي والضوية ميزانتي أيها الله ضوية قفك ميزان كيس عسلام وعمل كيس صالحة أوبطه وكبت عمل كيس حم إلهي قفك سوى اللي بالي وقف جنة إلهي سبحانه وتعالى وقلي وحال كينية حكمل عبد الله ما نتعى لكيني قف الله صدوي سغاشا إيا السغال كتاب وفقر انتهي ومد والباء الذي هي بور كبير هي انت ايش هذا قبطه ايها الوكن السغاشن iyo sagaal kitaab qof la soo qoray oo leeyahay waxana amalkaani ba ku qoran malaa'iktu meesha ay keentay markaas waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala u keenay leeyahay war maxaa waxa kan ay ka sameynaysaa
camalkan badan ee uu sameeyey markaas ayaa waxaa la odhanayaa maanta lagu dulmin maayo warqad yar baa la keenaya oo kaleeto oo ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah miisaanka dhinaca kale loo saaraya markaasay laa ilaaha ila allah ayaa waxay ka weynaanaysaa 99 kitaab warqad yar oo boqshad ku jirta oo geeskan kale la saaray ayaa ka miisaan cuslaanaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa yadkhulu maca ismi illaahi shay magaca ilaahay wax la culaysi ma jiraan kelimada xaq ah lagu dheganaado laa ilaaha ila allah waa lagu dheganaado si ikhlaas ah loo yiraahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ikhlaas loo yiro waa kelimada ugu rajo badan tawxiidka waa waxa ugu rajo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku uu kaga rajo qabo man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan biha qalbuhu qalbigiisa ay khaalis ka tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nifaaq iyo balaayo aanay uga hoosaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ku badbaadaa miisaanka haddii laga gudbo waxaa yaala siraaq faاstabaquu الsiraata faannaa yubsiruun siraadka waxa weeye buundo ilaahay subxaanahu wa tacaala jahannamo korkeeda ayaa saas markii miisaanka laga soo dhammaado waxaa la leeyahay siraadka qiyaame ka mid tahay siraadka waxa weeye waa buundo la saarayo jahannamo korkeeda la saaraya buundo dheer jahannamana intay leeg tahay hadday ilaahay subxaana wa tacaala u xisaabsan tahay in misay leeg tahay haddii la jannadu carduha asamaawaati waalard samaynka iyo loolka oo laysu furayo ka leeg tahay haddana naartuna sidoo kale iyadana waa la buuxinaya walikullin calaya mil'uha mid walba waa buuxsamaysaa marka saasaa buundadaa loo saari waxa weeye buundo aad iyo aad u dhuuban oo aad iyo aad u af badan oo culimo qaatay ku xisaabsan tahay sida axaddu min asayfi wa adaqu min ashacri yacni hal tin way ka dhuuban tahay waxayna ka af badan tahay seefta iyo mindida afka badan ayay ka af badan tahay taasaa loo ku socda dadka halkaa waxaa la mari marka qof walba wuxuu ku marayaa camalkiisa ayuu qof walba ku marayaa dadka halkaas soo maraya dad baa waxay ku marayaan awalu kawkabatin bayna nabigu calayh isalaatu wassalaam oo maaragtay dadka camalka wanaagsanaa sida hillaac ay u marayaan hillaac oo kaleeto ayay u marayaan qaar baa soo maraya dabayshoo kale u marayaan buundadaas yartahay sidaa aad aragteen camalkii saalixaa baa marsiinaya buundo dabayl oo kale ku marayaan qaar baa waxay ku marayaan faras ordaayo aad u orod badan ayay ku marayaan oo maaragtay buundadaas kaga gudbayaan qaar baa waxay ku marayaan camalkooda ninba camalkiisu intuu yahay qof ordaayo oo kaleeto ayuu ku maraya orod buu ku marayaa qaar baa socod ku maraya socda maaragtay camalkoodiiba hadda intaa noqday socod bay ku marayaan qaarna maalna way kufaya oo siraad ka dhacaya marna waa soo fuulaya camalkiisii waxa weeye waa gaarsiin karayaa inuu si fiican u socdo qumaati u socdo marna wuu dhacayaa oo kufaya naartii iyo dabkiibu eegaya ilaahu yahay ilaahu ugu rid markaa meesha kusoo noqonaya siraadka marna wuu kufi marna wuu maaragtay dabkii waa leefaya lahabkii siraadka jahannamaha hareeraheeda waxaa taagan malaa'ig baa taagan malaa'igtii cadaabta ka mida waxay haystaan kalaalid bay haystaan sida birahan dhulka lagu xaaqo ee qashinka lagu guro ee afka leh ee saa u qanjarafan ayay haystaan waxa meesha ku daatay gaalo iyo munaafiqiin iyo cusaad meesha ku daatay saasun baa naarta loogu xaamina saasun bay ugu ridayaan saasay u xaaqayaan sida qashinka loo xaaqo oo kale markaasay naarta ku xaaqayaan wixii meesha ku daata sidaas baa lagaga gudbayaa qof walba iyo camalkiis ayuu ku gudbayaa marka waxaa loo baahanya maalintaas allahuma habitna cala asiraat allahuma habitna cala asiraat laba ragcoo habeenkii mugdigaa u diyaarso qur'aan u diyaarso ikhlaas u diyaarso ilaahay subxaanahu wax bixin u diyaarso waxyaalaha ugu daran oo meesha istaagi doono waxaa ka mida qatiicatu raximka xuquuq ulwaalideynka meelahaasay soo istaagayaan halkaasay soo istaagayaan rabbiyow dadkiina goyn jiray qaraabadooska ahaa halka noogu reeb baa laleeyahay kuwa xuquuqul waalideynka waalidiinta casi ilaah halka noogu reeb bay leeyihin halkaasay dad badani ku harayaan hala iska jiro camal wanaagsan ha loo diyaarsado maalintaas iyada ah kadibna haddii la gudbo wixii halkaa gudbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggii jannada ayay u gudbayaan mar hadday naarta ka soo gudbeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ina asxaaba aljannati alyawma في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلهي سبحانه وتعالى وحكى بلنا ولا ليال إنه إلهي نقدر وقوة وحسوسته قفلنا يعني قلبي قولة كجلي إحنا وديار سوا وحلدها هي إلهي سبحانه وتعالى إن حسوسنا ولا ليال الدنيا لو إقامتها إلهي نوالنا الشيء يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فأنتاس إلهي سبحانه وتعالى ونوشي ولا ليال وحنا يوجد وحاول الدنيا هي غفلة هذا هي اسكه المعمد هذا هي لصعدك ضدك غفلة كجرة وحلو باهي إن كنت تكتونانه إلهنا سبحانه وتعالى خصوصنانه مالين تاسيرة ومالين نجاه الرئيسة إلهنا قرآن وحبين وكفها فهي آخرية سورة لها قيامة نبي عليه الصلاة والسلام محي من كان يريد قفك دوني إنه قيامة أرك الرأي العين آخرية إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت لما سورة دوده وحوي سورة عامة كجرة الجزء عامة كجرة آخرية إذا قفك دوني قيامة ينوف الأرض إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون